xildhibaan Maarig Yuusuf Cilmi Bidhi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ay weheliyaan qaar ka tirsan cuqaasha gobolka Togdheer ayaa si wada jir ugu baaqay guud ahaanba dadka aan iska diiwaangelin gobolka Togdheer inay iska diiwaangeliyaan deegaanka Buuhoodle. xildhibaanka iyo cuqaashan ayaa tilmaamay in maalmaha fooda inagu soo hayay diiwaangelintu si rasmi uga bilaabmi doonto deegaankaasi Buuhoodle, waxaana ugu baaqeen cid kasta oo hore isu diiwaangelin inay iska diiwaangeliso deegaankaasi. sidoo kale waxay cadeeyeen inay diyaariyeen gaadiidkii lagu rari lahaa dadka aan hore isaga diiwaangelin gobolka Togdheer. waxaan dhamaanteed si wada jir doonaa inaan halkan fariin uga diro dadkeygii. waxa la socotaan waxa ay nooga bilaabaysaa diiwaangelinta gobolka Buuhoodle. Buuhoodle waxa nooga bilaabaysaa oo ka tirsan gobolka Togdheer oo 22 goobood 16 bisha ay ku bilaabaysaa 10 gooboodna waa xagga hoose soke 12 xagga shishe. maadaama ay tahay 22 goobood oo gobolka Togdheer uu leeyahay oo harsanayd waxaan doonaynaa halkan fariin in marka hore uga diro dadkii gobolka Togdheer aan u helin fursad aan iska diiwaangelin gobolka Togdheer u dhashay iyo kuwa ku sugnaa gobolada kale ee Soomaaliland iyo meeshay doonaanba inay maanta fursad u haystaan inay iska diiwaangeliyaan Buuhoodle. xafiisyo badan ku furnay meelaha doono ee codkeenu yaalo ila doonayna la yimaado waxa kamid ah Coodale, Balaacalan, Qorlugud, Gandahar iyo Muraada iyo Galgal, Riiga, Muraada adigu ilaa 10 goobood baan haysanaa. waxaanu diyaarinay soo dhaweyn baanu diyaarinay waxaanu diyaarinay dad idin soo dhaweeya aan gaar haysan u baahan in la geeyana xafiiskayga imanayaan oo salaama ku xiga xafiiskayga imanayaan iska diiwaangelinayaan magacay qorayaan iyo telefoonka maalinta diiwaangelin doonto diyaar baan gawaani baan u diyaarinay annaga qaadayna annagana soo celinayna guud ahaan iyagana la hadlaya shacbiga gobolka Togdheer meel kasta ay joogaan inay isdiiwaangeliyaan. horta inta gobolka Togdheer ah guud ahaan fursad qaali ah bay u tahay oo nin waliba uu kaga faa'iideysan karo isagoo nin waa caam weeye isagoo nin gaara iyo meel gaara aan ahayn inuu codka doonto oo meeshuu doonayay dabadeedna ku hubsado waayo waxa jira fursado iyo maalmo uu meeshuu doono ku qoranayo ee gobolka Togdheer ah wixii Soomaaliland oo dhanana way u furan tahay. intu waxay ka koobmaysaa waxa jira kaar dalka laga qaatay oo food lagu galayo oo sharciyada dhalashadana lagu qaadanayo. waxa ugu dambaysa gobolada sida la og yahay gobolka Buuhoodle iyo inta looga footeeyo marka aad maanta qaado weydo waqtigaas waa waqti ka tagay waa intaha. gobolka Buuhoodle wuxuu ku abtirsadaa gobolka Burco wixii aan qaadan warqada xuduudka iyo inta degta ilaa iyo inta xuduudka oo dhow wixii dega Balweyn. waxaan anigu aan halkan ka soo jeedinayaa waa fursad ka dambayna waraaqada hal la qaato. alleeya kaarkan waa Charles hal la qaato waa kii dambeeyay wuxuu xildhibaanku aan ugu mahad celinaynaa oo inoo qabtay wuxuu yiri xafiiskayga la iska diiwaan gelinayaa. iminka matala ninka jooga Berbera hadduu noogu yimaado Burco xafiiska markuu iska diiwaan geliyo ee telefoonkiisa noo qoro annaka qorayno qaadayna Buuhoodle oo sool buu ka soo qaadanayaa haddana marka dambe wuxuu ka codayn karaa meel alla meeshu doono. idinka codsanayna dad yahow haddii aad wax maqlaysaan qaata kaararka qaata haddaad diidaan wallahi waxaad siin baadi. waa Maxamed Ibraahin Xasan Maxamed British shabakada caalamiga ee Hadwanaag News Burco.